axial skeleton iyo appendicular skeleton in aad soo aqriso ay ku xiran tahay in aad su'aashan ka jawaabto. Appendicular skeletonka ee qaybahan soo socda midka aanan ahayn hadii aynu sheegno waa D oo ay ku qoran tahay skull. Skull kuma ahan appendicular skeleton ma aha. Maxaa yeelay axial skeleton waxa la isku dhihi jiray qaybahan hadda aad u jeedaan. Appendicular skeletonna waxa la isku dhihi jiray qaybahan. Laftan hadda aad u jeedaan waxa ay kamid tahay axial skeletonka ama caruurta ay dhalay doonaan cunug nooca dhiigiisu yahay O. Probability lagu heli karo maxay tahay su'aasha. Si anaga u soo saarno wax kala ma dhahayno. Noocan dhiiga this blood group sidiisa u soo deji kan asna sidiisa u soo deji ama sidiisa u soo qor. A O-dan soo deji. B O-dan ayadana soo deji halkaas ku qor. Mar waxa israacisaa labada hore israacsi. A iyo B israacsi. marna israacsi labada dambe israacsi O iyo O israacsi ay qana P capital iyo P small haday israacaan waxa la dhahaa mar walba waxa way dominant iyo recessive haday israacaan dominantiga la xoog badan asaga magaciisa la qaadana maadaama hada dominantiga meesha uu ku badan yahay asna oo soo horeeyo magaciisa la qaadana magaca dominantiga ee xarafka P capital muxuu ahaa wuxuu ahaa purple ayuu ahaa purple ayaa la soo qaadana marka dhamaantood hadii la fiiriyo waa all purple flowers waa ubaxyadaas oo dhamaantood wada purple ah waa kana laakiin nooca purple adiga ee ku dhalan doono waxa ku dhalan doona purple kiisa muxuu noqonaa ma pure sida kan oo kale noqon doona muxuu noqon doona maya pure ma noqon doona ee wuxuu noqon doona impure ayaa uu noqon doona bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kusoo dhawaada warqadeeni labaad warqadan waxaan ka dhiganaynaa maadada biology-ga insa hor idinku soo sheegaba imtixaankani waa imtixaankii la qaaday sanadkii hadda ugu dambeeyay ee ahaa 2021ka hadii aan qaybta ugu horeysa aan fiirno qaybta ugu horeyso waa jawaabta saxda ah goobageli su'aasha koowaadna waxay tahay the nerves that arise from the brain are known as dareen wadayaasha kuwaasoo ka imaada maskaxda waxaa loo yaqaanaa magaca loo yaqaano ayaa la iska rabaa meeshan waxa kugu qoran ilaa iyo 4 jawaabood ayaa kugu qoran waxaad ka dooran doontaa kaliya kelmadda ama midda saxda ah ee sax ama looga jawaabi karo dareen wadayaasha maskaxda ka imaado dareen wadayaasha maskaxda ka imaado waxaa loo yaqaanaa cranial nerves marka goob waxa la gelinayaa sida oo ay ku qoran tahay cranial nerveska dareen wadayaasha maskaxda lagu magacaabo su'aasha kale labaad ee goobageliska waxay tahay the nervous system that is controlled the hypothalamus is said to be nervous systemka waa habdhiska dareen wadka kaasoo kontrola ama ilaaliya hypothalamuska maxaa loo yaqaanaa jawaabta saxda ah iyadana ka doora waay jawaabta saxda ah waxa inoo noqonayo automatic nervous system markale sida ayaa sax noqonayso kuwa kale sax ma noqonayaan su'aasheena kale ee saddexaad ta fiirisan using the diagram below indicate the party of the neuron that receives information from other neurons adoo isticmaalayo diagramka hoos kugu qoran waxaad sheegtaa qaybta kamid ah dareen wadaha taasoo informationka ama dareenka ka hesha neuron kale si aad su'aashan aga jawaabto waa in aad nervous systemka in badan ka soo akhrisay waxay radaan dib ugu noqono nervous systemka ama neuronka marka aan ka hadlayno neuronka qaab ahaan sida ayuu ahaa sida buug inoogu qorneed oo aad hore u soo dhigateen wuxuu iska leeyahay two end sides ayuu iska leeyahay laba dhinac dhamaad qaybtaas dhaxana wuu lahaa qaybtan waxa lagu magacaabi jiray horta buugga wuxuu kugu qorayaa nambaro 1 2 3 ayuu kugu kala qoray adiga magacyadaas marka hore waa inaad fahamsan tahay magac kasta wuxuu u taagan yahay iyo shaqadiisa waxa ay tahay oo aad soo akhrisay chapterkaas qaybta koowaad oo kale waxa hadda lagu qoray number 1 ka horta wuxuu u taagan yahay number 1 wuxuu u taagan yahay nerve ending ayuu u taagan yahay waa dhamaadka dareen wadaha ayuu u taagan yahay ama waxa loo yaqaan terminal dendrites waa dhamaadyada dendrityada geedyaroyaasha dhamaadkooda ayaa loo qaad marka waa qaybahan number 2 oo kale hadda halkan lagu qoro qaybtan waxa ku qoran number 2 ayaa ku qoran maxay tahay idan magac loo yaqaan qaybta number 2 ay ku qoran tahay waxaan u bixinaynaa axon ayaan u bixinaynaa inuu yahay number 3 waxa lagu qoray qaybtan dambe ee neuronka ayaa lagu qoray
maxay tahay marka qaybtan dhexe maxaa loo bixinaa qaybtan dambe waxaa lagu magacaabi jiray sida aad hore u soo dhigateen nucleus bu ayaa lagu magacaabi jiray haye qaybahan kale ee ka farcamayana qaybtan nucleusta waxay ku dhex jirtaa cell body ay ku dhex jirtaa unug jireedka ay ku dhex jirtaa qaybahan ugu dambeeya ee meesha number 4 lagu qorayna waxa la dhihi jiray dendrites ayaa lagu magacaabi jiray adii su'aasha guud waxay tahay qaybta information ka hesha ada neuronada kale wax ka hesha qaybtaasi waa qaybtaasi anagu waxaan goobo gelinaynaa number 4 waxa noogu qoran dendritiska shaqadoodu waxay tahay in ay information ka helaan other neurono kale ay ka helaan su'aasha kale afraad hadaa fiirsan using the diagram below answer the question that follows adoo isticmaalayo diagramka ama jaantuska hoose waxaad ka jawaabtaa su'aasha soo socota a girl was involved in an accident and x-ray showed that the part of the brain indicated by the arrow was damaged by a trauma what effects would this girl most likely gabar ayaa waxay gashay shil raajata la saaray raajata marka la saaray waxa la ogaaday qayb kamid ah maskaxdeeda in uu dhaawac soo gaaray waana qaybta falaarta lagu muujiyay dhibaato intee la eg ayaa ay gabadhaasi dhaawac qaybta maskaxdaasi hadda falaarta lagu aadiyay ee ka muuqata ee dhaawac uu ka soo gaaray raad ama saameyn intee la eg ayuu u geysan karaa ayada halkan waxa lagu qoray ilaa iyo afar statement ayaa lagu qoray mar waxa lagu dhahay partial or complete memory loss waayo qayb kamid ah maskaxdeeda ama gabi ahaan maskaxdeedaba maskaxda dhan ayaa ka lumayso waxa lagu dhahay body temperature ayaa ku dhacaya fluctuation waayo heerkulka jirkeeda waxa ku dhacaya isbedbedel kuleel qabow ayaa ay dareemi kartaa saddex waxa lagu dhahay trouble in maintaining balance waxay dib ku qabi doontaa in ay hesho balance isku dheelitirnaan in ay jirkeeda u hesho si waxa la dhahay rapid breathing xagga neefsashadeeda marka laga hadlayo neefsashadeeda ayaa waxa ay noqonaysaa lagu dhahay mid rapid ah oo dhaqso ah ayaa ay noqonaysaa taas sax noqonayso marka hore waxay u baahan tahay si aan su'aashan aaga jawaabno in aan xusuusanahay loobiska ama laabyada ay maskaxdu ka kooban tahay iyo qayb kasta shaqada ay qabato oo aan hore u soo sheegnay maskaxdu waxay ka kooban tahay bini aadamka ilaa iyo 4 loob loobkan hore waxa lagu magacaabi jiray frontal lobe hay loobkan kale ee dhexe marka frontal lobe lagu gudbo waxa lagu magacaabi jiray parietal lobe qaybtan kale waxa lagu magacaabi jiray occipital lobe qaybtanna waxa lagu magacaabi jiray temporal lobe ayaa lagu magacaabi jiray adiga hadda afartan looba ma ahan laakiin qaybaha maskaxda marka aan sharxaynay intaba waan soo sheegnay qaybtan hoose ee occipital lobe ka hooseyso waxaan ku soo sheegnay cerebellum in ay ahayd qaybtan hoose na waxa lagu magacaabi jiray brain stem jirida maskaxda ayaa lagu magacaabi jiray qaybahan hadda shaqada qaybta qofta gabadhani uu ka soo accidentiga ama shilka uu ka soo gaaray waa qaybtan cerebellum-ta waa cerebellum-tana shaqadeedu maxay ahayd waxay ahayd balance and coordination ayay jirka u qaabilsanayd in jirka ay isku dheeli tirto sidoo kale hadana coordination xiriirkiisana ay ka shaqeyso ayaa ay qaabilsanayd anaga hadda maxaan goobo gelinaynaa afarta meesha inoogu qoran ee C ayaa goobo la gelinayo trouble in maintaining balance waaye gabadha waxa dib ku noqonayso in ay hesho balance isku dheelitirnaan in ay jirkeeda u hesho ayaa ay dhibaato ka soo gaari doontaa marka sidaas ayaa sax noqonayso su'aasha shanaad waxaan lahayd the primary function of the melanin is to shaqada ugu muhiimsan ama ugu weyn ee uu qabto borotiinka lagu magacaabo melanintu maxay tahay afar shaqo ayaa halkan lagu qoray produce vitamin D produce sebum waterproof the skin provide protection against sun's ultraviolet intaan waxa sax noqonayo shaqooyinka ugu waaweyn ama ugu muhiimsan ee borotiinkan melaninka uu qabto waxa waaye waa D waaye shaqadiisu waxay tahay provide protection against sun's UV waaye in uu siiyo jirka ama in uu jirka ka difaaco falaaraha khatarta ah ee ultraviolet ka loo yaqaano in uu ka difaaco waaye shaqadiisu su'aasha kale noogu xigta ee lixaad hadaad fiirisaan Ali was injected with penicillin through the skin
using hypodermic needle. The first integumentary structure through which the needle passed was hadalka wax kala maahan waa wiil cali lagu magacaabo ayaa waxaa lagu diray irbad ayaa lagu diray. Integumentary systemka qayb badan oo iyo skinka kamid ah ayaa ay ahaayeen. Marka waxaa la soo qaatay skinkana saad ogtihiin waxaa la soo sheegay wuxuu iska leeyahay ilaa iyo 3 layer. layer waxaa lagu magacaabi jiray epiderm, layer kale waxaa lagu magacaabi jiray derm, kan kalena waxaa lagu magacaabi jiray marka ugu horeysa ee irbadaasi inject lagu duro. Hadaba meesha ama layerka ugu horeeyo ee ay irbadaasi ka dhaxbaxayso ama lagu duri doono waa layerkee ama waa lakabkee waa su'aashu. layerkaasi wuxuu noqon doonaa epiderm waaye, dubka sare ama lakabka sare ee skinka ayaa marka hore irbadu lagu duri doonaa. answerka anagu waxaan goobi gelinaynaa bida ayaan goobi gelin doonaa. su'aasha toddobaad, in humans all are the functions of the skin except. bini'aadamka marka laga hadlaayo shaqooyinka skinka uu qabto way badan yihiin. qodobadan soo socdo say u badan yihiin waa shaqooyinka uu skinka uu qabto, macnaha hal shaqo oo shaqooyinka skinka uu qabto aan kamid ahayn ayaa meesha ku qoran ee midaasi goobe soo geli waayay su'aashu. respiratory gas exchange. horta skinku ma qaabilsan yahay neefsashada neefaha in sida uu u shaqeeyo langiska oo kale ma qaabilsan yahay skinku? maya, ma qaabilsano waay. maxaa yeelay gas exchange-ga isbedbedelka neefaha waxaa qaabilsan the langis, samabada ayaa qaabilsan. marka jawaabta saxda ah waxay noqonaysaa isla eedan ayaa noqonaysaa. kuwa kale hadaa fiiriso skinka saddexdan shaqo ee kale ee meesha ku qoran wuu qaabilsan yahay. sideedaad waxaa lagu dhahay a type of bone that is classified as irregular bone is known as. nooca lafta taasoo loo haysto in ay tahay irregular bone waxaa loo yaqaanaa. nooca irregular bone-ka waxaa loo yaqaanaa lafahaasaa ogtahay skeletal system marka laga hadlayo waxay ahaayeen sida hore loo soo sheegay longy bones, shorty bones, irregular bones. qaybahaas dhan ayaa la soo sheegay. tusaale irregular bone ee meeshan ku qoran waa midkee waaye? leg bones u dhahay. leg bones ma noqonayso. leg boneska waxay ka mid yihiin longy boneska ayay ka mid yihiin. vertebrado. su-aasha kale ku xigta ee sagaalaad, which of the following is not a party of appendicular skeleton? waa kuwa soo socda midkee ayaa aanan ahayn appendicular skeleton aan ahayn. weli haddana waxaa laga hadlaa systemka skeletal systemka ayaa laga hadlaa. axial skeleton iyo appendicular skeleton in aad soo aqriso ayay ku xiran tahay in aad su-aashan ka jawaabto. appendicular skeletonka qaybahan soo socda midka aanan ahayn haddii aynu sheegno waa D oo ay ku qoran tahay skull. skullku ma ahan appendicular skeleton ma aha. maxaa yeelay axial skeleton waxaa la isku dhihi jiray qaybahan hadda aad u jeedaan. appendicular skeletonna waxaa la isku dhihi jiray qaybahan. marka laftan hadda aad u jeedaan waxay ka mid tahay axial skeletonka ayaa ay ka mid tahay. su-aasha kale ee tobanaad, waxa meeshaasi ka maqan waa meelaha banaan buux oo kale waa fill in the blank space waaye. qanjirka meeshaasi ka maqan releases wuxuu soo daayaa excess water, biyo xad dhaaf ah ayaa uu soo daayaa. that helps the skin to regulate body temperature, taasoo jirka ka caawinayso in uu ilaaliyo heerkulka. haddaba waa qanjirkee qanjirkaasi? qanjirka shaqada qaabilsan waa kee? qanjirka shaqadaas qaabilsan waa sweat gland, qanjirka loo yaqaano qanjirka dhididka loo yaqaano oo all the skin laga heli karo ee dhididka soo saara waa. laakiin adaas ma noqonayaan. su-aasha 11aad, Ali has eaten a bread for breakfast. The glucose level of his blood will be. wiilka la yiraahdo Ali ayaa waxa uu quraac ahaan u cunay rooti. glucose-ka dhiigiisa ku jirta maxay noqon doontaa? sheeg waa su-aasha. glucose-ta jirkiisa ku jirta waxaa ku dhici doono way kordhi doontaa. maxaa yeelay rootiga ayaaba laga heli karaa glucose, jirkiisana glucose kale ayaa ku jirta waa dhiigiisa, marka glucose taasi waa ay sii kordhi doontaa. su-aasheena 12aad,
The thyroxine hormone is secreted by hormoonka lagu magacaabo thyroxine hormoonka lagu magacaabo waa la soo dhiijiyaa qanjirka soo dhiijiyo waa qanjirkee qanjirada meesha ku qoran qanjirka soo dhiijiyo thyroxine hormoonka waa C thyroid glandiga ayaa laga soo dhiijiyaa su'aasha 13aad The tough outer membrane covering the brain and spinal cord of vertebrates is called. Xuubka adag ee ku daboolan spinal cordka iyo brainka maxaa loo yaqaanaa? That membrane waxaa loo yaqaanaa dura mater ayaa la dhahaa. Waa xuubka adag ee ku daboolan maskaxda iyo spinal cordka xangulada dura mater ayaan dhahnaa waana A. Su'aasha kale ee noogu xigta ee 14aad if one strand of DNA is 5 prime waxaana la siiyay DNA strand ayaana la siiyay wuxuu naga rabaa in aan qorno RNA strand in aan qorno ayuu naga rabaa haddii lagu siiyo DNA strand DNA-du waxa waaye non template strand waaye ama coding strand sida aad hore u soo qaadateen waxa la iska rabaa in la soo saarto strandiga kale ee ka farcama ee asna RNA-da ayaa la rabaa in la soo saaro RNA-du waxay ahayd template strand ama antisense ayaa ahayd si aad u soo saarato non template-ka oo DNA-da ah marka aad rabto inaad qorto template-kiisa oo RNA ah marka aad rabto inaad qorto DNA-da eedeeda waa base-ka eeda ah wuxuu isku bedeli doonaa T adenine-ka wuxuu isku bedeli doonaa thymine cytosine-ka wuxuu isku bedeli doonaa guanine guanine-ka wuxuu isku bedeli doonaa cytosine thymine-ka wuxuu isku bedeli doonaa adenine ayaa isku bedeli doonaa xarfaha sida ay isku bedeli doonaan wax kale lama sameyn adiga DNA-dana haysata meeshaana waxaa lagu dhahay waa 5 prime to 3 prime ayaa lagu dhahay in qaybtan ay tahay non template inay tahay waxa ku cadeynayso waa from 5 prime to 3 prime waa non template template marka la qorayo wuxuu ka bilaaban jiray 3 prime ilaa iyo to 5 prime ayaa uu ahaa ma midkan opposite-kiisa waaye ama rogaalkiisa waaye marka eeda meesha ku aragtaba T ku bedel waa kana eedan waxa lagu bedelanayaa T haddana inta taala T-da waxa lagu bedelanaa A ayaa lagu bedeshay C-dan waxa lagu bedelanaa G ayaa lagu bedelanaa G-dan waxa lagu bedelanaa C ayaa lagu bedelanaa way socotaa ilaa hadda saddexda ugu dambaysa soo qaatay sida hadda T-dan A ayaan ku soo bedelay C-dan G ayaan ku soo bedelay A-dana waxaan ku soo bedelay T ayaan ku soo bedelay waa from 3 prime ilaa iyo to 5 prime intaba waan soo qornay su'aashaas halkaas ay ku eg tahay question 15 a black ox P capital E B small was a black ox was crossed with a white cow identify the resulting phenotypic ratio black ox waaye waa dibi madow ah oo heterozygous bacrimana kala jaad ah waa BB ayaa was crossed waxa lagu talaalay ama lagu hibriday white cow sac cadaan ah sac cadaanka asna waa BB waaye waa homozygous waaye dibigu sida hadda lagu sheegay waa heterozygous sacana waxa lagu dhahay waa homozygous waaye haddii dibigan uu u tago sacan cadaanka ah uu u tago tafiirta koowaad the first filial maxay noqon doontaa haddii sac uu dhasho sacaasi muxuu noqon doonaa ma waydo noqonaa ma balaagu noqon doonaa haddii uu dhasho ox dibi haddii uu dhasho dibigaasi muxuu noqon doonaa ma balaag ma waydo noqonaa ma homozygous noqonaa ma heterozygous noqonaa muxuu noqonayaa sheeg waxaad isticmaalaysaa hadhow square-kan Barnett square-ka ayaad isticmaali doontaa labadooda midkan balaaga ah mid ka rabtaa soo hormarin kartaa maadaama heterozygous uu yahay BB uu yahay labada B hal B inta ku qor hal B kala halkaas ku qor white cow-na dhankan kala asna ku qor waxa lagu dhahaa asna waa BB labada BB labadaas gees ku kala qor then caadi isugu dhif labadan B hadii la isku dhifto mar waliba dominant-ga recessive-ka dominant-ga ayaa soo hormara oo xarafka capital-ka ah
B capital iyo B small labadan haddana haddii la isku garaaco B capital B small labadan haddii la isku garaaco isgarab dhig labadan haddii la isku garaaco ayagana isgarab dhig waxaan dhihi doonaa marka waxa inoo soo baxay meesha aad ku aragto heterozygous aad ku aragto waxaa la dhihi doonaa waa laba xaraf oo kala duwan waa black ox ayaa la dhihi doonaa meesha aad ku aragto laba xaraf oo isku mid ahna oo homozygous oo small letters Hawaii white cow ayaa u noqonaya haddaba first filialka tafiirta koobaad labadaas markay isu tagaan tafiirtooda koobaad waxay noqon doontaa waa afar zygote ayaa meesha ka soo baxda afarta zygote maxaa lagu kala magacaabaa afarta zygote hadda hadii la fiiriyo half ka mid ah afarta zygote half ka mid ah waxa waaye waa BB halfka kalena wuxuu noqday BB ayaa u noqda BB dan wuxuu u taagan tahay black ox ayaa u taagan tahay BB dan kalena wuxuu u taagan tahay white cow ayaa u taagan tahay tafiirta koowaad haddii labadaas ay isu tagaan waxa dhalan kara waxa ay noqon karaan labadan midkood black ox ayuu noqon karaa ama white cow ayaa u noqon karaa madownu noqon karaa cadaan uu noqon karaa labadaba uu dhaxeen karaa su'aasha saasa laga wadaa haddii ratio ahaan loo qoro labadan fraction maadaama labadan ratio labada hooseeyo isku mid yahay iska tuur been waxaa soo qaadanaysaa labada sare ee kaliya waxaa la dhahaa 1 to 1 waxaa goobo la gelin doonaa meesha ay ku qoran tahay 1 to 1 ay ku qoran tahay ayaa goobo la gelinaa waana qaybta B 1 to 1 1 kor wuxuu u taagan yahay black sida halkan ba aan ku soo saarnay 1 ka dambana wuxuu u taagan yahay white ayaa u taagan yahay waa half ka saasa laga wadaa inta kale sax ma noqonaya question 16 according to Mendel the crossing between purple flower and white flower results the first filial generation becoming maxay noqonaysaa jawaabta hadii aan sii sheegno waxa sax noqonaysa B all purple ayaa noqon doontaa all purple waxay ku noqotay sidaan soo socoto waxa lagu dhahay waxa la isku hibriday ama la isku talaalay laba geed labada geedna waxa waaye purple ubixiisa geedka kalena ubixiisu waa cadaan geed buluug xigeen ubixiisa uu yahay iyo geed midabkiisa uu cadaan yahay hadii la isku talaalo ubax dhalan doono midabkiisa noocee ayuu noqon doonaa ma cadaan noqon doonaa ma buluug xigeen noqon doonaa muxuu noqon doonaa sheeg waa laakiin dhamaan all purple ay noqonay waxayna ku noqotay sidaan soo socoto anagoo xeerka Mendel isticmaalayno waxaan soo qaadanaynaa mar kale Barnett square ayaan soo qaadanaynaa waxa hore maadaama purple flower uu yahay hadana BB ayaa loo qoray halkaan si hadda arkaysaba purple ku waa dominant waaye white kana recessive waaye hadii labadooda la isku talaalo waxa la qarinaa white ka waxa wax qarinaya purple ka ayaa qarinaya maxaa yeelay kani waa dominant kana waxa uu yahay waa recessive waa shiiqiye iyo shiiqsane hadaan soo dhigno kan wuxuu yahay waa BB ubaxa kalena waxa waaye waa recessive key asna waa BB waa isku garaacayna B capital B small B capital P small hadana P capital P small P capital P small waa kan P capital e B small see loo akhrina P capital e P small haday israacaan waxa la dhahaa mar walba waxa waa dominant iyo recessive haday israacaan dominantiga la xoog badan asaga magaciisa la qaadana maadaama hada dominantiga meesha uu ku badan yahay asna uu soo horeeyo magaciisa la qaadana magaca dominantiga ee xarafka P capital muxuu ahaa wuxuu ahaa purple ayuu ahaa purple ayaa la soo qaadana marka dhamaantood hadii la fiiriyo waa all purple flowers waa ubaxyadaas oo dhamaantood wada purple ah waa kana laakiin nooca purple adiga ee ku dhalan doono ubaxa ku dhalan doona purple kiisa muxuu noqonaa ma pure sida kan oo kale noqon doona muxuu noqon doonaa maya pure ma noqon doona ee wuxuu noqon doonaa impure ayaa uu noqon doonaa maxaa yeelay homozygous ma aha waa heterozygous waa P capital iyo P small heterozygous kana wuxuu ahaa pure waaye dominant waa kana waxa waa pure asna waa recessive waa marka waxa ka dhashay impure oo dominant ah ayaa ka dhalanaya waa kaasa question 17 which of the following regions in Somalia do you expect to have a greater species diversity waa gobolada soo socda ee Soomaaliya gobolkee ayaad adiga u rajayn lahayd in uu yeesho
species diversity kala duwanaansho xagga specieska sinjiyada oo badan inuu yeesho gobolkee adiga ayaad expect garayn lahayd ama aad rajayn lahayd. Tan waa optional question mid aad rabto ayaad goobi gelin kartaa taa adiga aad jeceshahay. Question 18, the groups of organisms that contain the largest estimated number of species are. Waa organismska marka laga hadlaayo kuwaasoo ay ku jiraan numberka ugu badan ee specieska ee sinjiyada noolaha inta ugu badan ay ku jiraan waa midkee sheeg waa su'aasha. Answerka waxaa noqonayo insectska. Asaga ayaa iska leh largest estimated number of specieska ayaga ayaa laga heli karaa. Question 19 waxaana la dhahay study the figure below shown below, mention the part of the ear that is responsible for hearing. waa figure-kan hoos ku qoran waxa aad daraasaysaa qaybta kamid ah qayb kamid ah qaybaha ay dhagtu u kala baxdo taasoo mas'uulka ka ah hearing-ka maqalka mas'uulka ka ah. qaybtaasi waxa ay noqon lahayd cochlea. Cochlea-na magaca kale ee loo yaqaan aan ku soo sheegnay wuxuu ahaa snail shell. waa qaybta dhagta ee qaabilsan hearing-ka maqalka qaabilsan waay. chapterkaasi dib waad u soo akhrin kartaa. su'aasha kale noogu xigta 20, Farah whose blood group is A heterozygous marries Fatima whose blood group B heterozygous. What is the probability that one of their children become O? waa su'aasha 20aad waxaa lagu dhahay nin lagu magacaabo Farah ayaa waxa uu guursaday gabar lagu magacaabo Fatima ayaa uu guursaday. ninka lagu magacaabo Farah nooca dhiigiisu waa A oo bacrimane kala jaad ah. gabadha lagu magacaabo Fatima ayadana nooca dhiigeedu waa B oo bacrimane kala jaad ah. waa su'aashu waxay tahay waa maxay probability-da kamid ah caruurta ay dhali doonaan ku noqon doono dhiigiisa oo uu ku noqon doono. anagu waan soo barnay blood grouping-ka marka aan ka hadlaynay marka dhiiga uu yahay homozygous iyo marka uu yahay heterozygous ilaa iyo saddexda qayboodba waan soo dhignay. waad xasuusataan sida loo shaqeynayo Punnett square-na waa ku shaqeyn kartaa, diagramka noocan oo kalena waa ku shaqeyn kartaa, waa ku soo saaran kartaa. haddii aan fiirno Farah waa aabihii nooca dhiigiisa heterozygous waaye. haddii lagu dhaho A heterozygote-keeda waxaa loo qori jiray A iyo O. Fatima waxaa lagu dhahay B waaye blood group-keeda haddana heterozygote waaye waxaa loo qori karaa iyadana marka B heterozygote ay tahay B iyo O ayaa loo qori karaa. waxaan qoraynaa haddana sex chromosome-ka. Farah maadaama uu yahay male sex chromosome-kiisa wuxuu noqonaa labadan chromosome X iyo Y ayuu noqonaa chromosome-tii toosneed iyo midda qaloocaneed. Fatima maadaama ay metelayso mom ama female ay tahay chromosome-yadeeda oo sex chromosome-ka waxaa loo qaadanaa double X ayaa loo qaadanaa. haddii aan sii wadno shaqada halkaasi mar walba waxaad og tahay chromosome-yada marka aan ka hadlayno hooyada iyo aabaha mar walba waxaa in ay gabar dhalato ama in uu wiil dhasho waxaa mar walba mas'uul ka ah aabaha ayaa mas'uul ka ah. macnaha hooyada markas horta waxay soo saartaa X ay soo saartaa, aabaha hadduu X uu soo saaro halkaa gabar ayaa ku dhalanayso. hooyada ayadoo markasta X soo saaraysa haddii aabaha Y uu soo saaro wiilaa dhalanayo. waxaas mar walba waxaa mas'uul ka ah aabaha ayaa mas'uulka. anaga hadda shaqada halkaas maaha. shaqadeena waxay tahay ama caruurta ay dhali doonaan cunug nooca dhiigiisu yahay O. probability lagu heli kara maxay tahay waa su'aasha. si anaga u soo saarno wax kale ma dhahayno. shaqada meel fudud aan ka sameynayna noocan dhiiga this blood group sidiisa u soo deji kan asna sidiisa u soo deji ama sidiisa u soo qor. A O-dan soo deji, B O-dan ayadana soo deji halkaas ku qor. mar waxaa israacisaa labada hore israacsii A iyo B israacsii, marna israacsii labada dambe israacsii O iyo O israacsii ayagana. waa qaybteennii labaad section B. waxaa lagu saxayaa 10 dhibcood waa isku aad kaliya wax kala maahan.
aniga waxaan sameeyay dhamaantoodba waan isku aadiyay mid kasta midku ku aadayo toos ayaan usoo qoray waa column A iyo column B waxa ugu horeeyo kow waa meningiska waxa ku aadaya wixii ku aadi lahaa waan kusii hor qoray oo column B-ga ku qornaa waa the layer that covers the brain and spinal cord waa lakabka daboola maskaxda iyo xangulada waa kusii aadiyay jawaabta kan labaad wuxuu yahay asna waa cerebrum-ka waxa ku aadaya asna the largest and most complex part of the brain waa qaybta ugu ballaaran uguna kakan maskaxda ayaa cerebrum lagu magacaabaa qaybta saddexaad waa cerebrospinal fluid dareeraha lagu magacaabo cerebrospinal fluid waa the fluid that provides oxygen and nutrients to the brain waa dareerahaasoo oxygen iyo nafaqo siiya maskaxda afarna hypothyroidism maxaan dhahaynaa iyadana waa qayb ka mid ah thyroid glandiga thyroid glandiga mar wuxuu sameeyaa overproduction marna wuxuu sameeyaa underproduction marka hypothyroidismka waa marka qanjirka lagu magacaabo thyroidka uu thyroid hormone deficiency waaye waa marka qanjirka hormoonka lagu magacaabo thyroid hormone lagu magacaabo oo yaraansho uu sameeyo deficiency uu sameeyo number 5 genomics waaye genomics maxaa leenahay waa the study of organisms genome waa barashada genomka ama genka organism in la barto ayaa genomics la yiraahdaa synovial fluid waa maxay asna waa lubricating substances found in jaundice waa walax sida lubricantiga ama saliidda oo kale ah oo dareere ah taasoo laga helo kala goosyada laga heli karo jointiga waa number 7 waxa ku aadaya asna waa the place where two bones meet kala goys waxa la yiraahdaa halka ama meesha ay ku kulmayaan laba lafood ama in ka badan codon waayo sideedaadna waxa ku aadaya waa the triple base of messenger RNA ayaa lagu aadinayaa waa base triple oo saddex ah waa marka base-yada ay saddex isugu xiran yihiin ama saddex ay isugu aadaan waana oo messenger RNA ah waay DDT waxa laga soo gaabiyay suntaasi ama kiimikadaasi D-da hore waxa laga soo gaabiyay dichloro D-da kale waxa laga soo gaabiyay diphenyl T-dana waxa laga soo gaabiyay trichloroethane ABO waxa ku aadaya qaybtan ku aadayso maxaa ayadana waa example of codominancy and multiple allele waaye ayaan dhahaynaa section kaasi waa section B halka ayuu noogu egyahay section C geena ayaan u gudbaynaa insha Allah section C waa qaybta saddexaad ee imtixaankeena qaybta saddexaad waxa lagu saxayaa sida aad meesha ku arkaysaan 50 marks dhammaan su'aalaha meesha kugu qoran waa direct questions su'aal walba waxa laga rabaa in aad sheegto sida saxda ahna aad u sheegto waa sida ay buugga ugu qoran tahay hadii aan ku hormarna marka su'aasheena koowaad waxaan la dhahay define the following terms qeex kelmadaha soo socda waxa kelmadda ugu horeysa waxay tahay mutation maxaa la yiraahdaa dhalandooris maxaa la yiraahdaa haddii aan qeexno waa is a sudden change in the genetic material that controls certain characteristics which may result in a change in this characteristic and is considered to have an effect if it is inherited kelmadda kale waxay tahay neuron maxaa la yiraahdaa ama nerve cell unug dareen ama unug dareen wade maxaa la yiraahdaa waxaan ku qeexaynaa iyadana is the working unit of the nervous system that generate and transmit nerve impulses ayaan ku qeexaynaa su'aasheena labaad haddaan u gudubno waxay tahay state the two abnormalities related to the following thyroid activities waxaad sheegtaa labo abnormality ama xaalado aan caadi ahayn kuwaasoo la xiriira qanjirada shaqooyinka oo ay qabtaan qanjiradan thyroid glandiska ah ay qabtaan waa hypothyroidism iyo hyperthyroidism waayo hypothyroidism waxay ahayd waa underactive thyroid waa qanjirka loo yaqaano
thyroid glandiga loo yaqaano marka shaqadiisa ay hoos u dhacdo ayaa waxaa lagu magacaabi jiray hypothyroidism lagu magacaabi jiray. marka maadaama la iska rabo two abnormalities oo qanjirkan loo yaqaano thyroidka marka shaqadiisa uu hoos aga dhaco ama waxa uu soo saarayay hormoonka uu aad u yaraado, cudurrada uu sababo oo abnormalitiska ah maxaa ka mid ah? waxaa ka mid ah cudur loo yaqaano goiter iyo cudur kale oo asna ah heart problems. labadaas ayaa badanaa dadka ku dhaca marka qanjirkan thyroidka loo yaqaano hypothyroidism uu qofka uu ku noqdo oo ku yaraado. kuwan labadan hadda aan sheegnay goiterka iyo heart problemska are two hypothyroidism abnormalities waayo. kelmadda kale waxay tahay la iska rabo hyperthyroidism. maxaa la yidhahdaa hyperthyroidism? hyper macnaheedu waxay ahayd overactive waayo ama overproduction waa la dhihi karaa. waa overactive thyroid waayo. qanjirkan loo yaqaano thyroidka inta loogu talagalay in la soo saaro in ka badan haddii la soo saaro xaalado oo waxaa qofka la soo gudboonaanayo abnormality ah. xaaladahaas abnormalityga ee la soo gudboonaanayo laba ka mid ah sheeg waaya su-aasha. laba xaaladood oo la soo gudboonaan doonto waxaa ka mid ah cudurka loo yaqaano Graves disease iyo cudurka kale ee loo yaqaano noduleska loo yaqaano ayaa ka mid ah. labadan ayaa ah two abnormalities aan ku magacaabaynaa. su-aasheena saddexaad waxaana la weydiiyey differentiate between lipophilic and hypophilic hormones. labadan hormoon ee lipophilic iyo hydrophilic maxay kala yihiin? kala qeex labadooda. su-aashu waa sidaas. labadooda marka aan kala qeexayno lipophilic magaca kale ee loo yaqaano non polarna waa la dhihi karaa. buugga dib waad u aqrin kartaa. waxaana ka heli kartaa beeshka 38 ayaa ka heli kartaa lipophilic which are fat soluble waayo. halka hydrophilicna which ay yihiin kuwaasoo ah water soluble ay yihiin. kuwana waa kuwo biyaha dufinta ku milmi kara, kuwana waxa waaye kuwo biyaha ku milmi kara waayo. dibna u soo aqri sharxaad dheerna halkaas ayaa ga bixinay marka aan sharxin casharkaas. su-aasha saddexaad qaybteeda B waxaa lagu dhahay give examples of lipophilic hormones. tusaalooyin oo lipophilic ah sheeg maxay yihiin ayaa lagu dhahay. examples of lipophilic hormoneska include waxaa ku jira oo ka mid ah steroid hormones iyo thyroid hormoneska. labadaas ayaa ka mid ah. haddana labadan hormoon waa mostly other hormones are hydrophilic waaye. labadan hormoon ayaa waxay yihiin lipophilic. inta kale ee soo harta waxa ay noqonayaan hydrophilic ayaa ay noqonayaan. su-aasheena afraad haddaan u gudubno waxaana la dhahay define the term genetic engineering. maxaa la yidhahdaa kelmadda genetic engineering? maxaa la yidhahdaa genetic engineering? marka aan qeexino waxaan ku qeexinaa is the direct manipulation of an organism's genetic using biotechnology. saas ayaan ku qeexinaa. su-aashaan qaybteeda kale ee B waxaana la dhahay genetic engineering uses many methods and tools. list any four of them. genetic engineeringka wuxuu isticmaalaa methodyo badan uu isticmaalaa oo ilaa iyo 6 gaarayo ama tool. haddaba waxaad sheegtaa 4 ka mid ah toolska ama methodyada uu isticmaalo genetic engineeringka. genetic engineeringka 4 ka mid ah haddaan sheegno waa restriction enzyme, DNA sequencing, recombinant DNA technology, gene cloning ilaa iyo 6 jirto. laakiin 4 ka mid ah sheegana la dhahay. 4ta ka mid ahna waan sheegnay waa kaasa. haddii aad u baahan tahay faahfaahin dheeri ah ilaa iyo 6dooda inkaasi badanba waxaad ka heli kartaa ama aad akhrin kartaa beeshka 166 ayaad akhrin kartaa. su-aasheena shanaad waxaana la weydiiyey differentiate between species diversity and genetic diversity. waxaad qeexdaa farqiga u dhexeeya kala duwanaanshaha jiinka iyo kala duwanaanshaha sinjiga. labadaas maxay kala qeex? waa midka sinjiga iyo midka hidaha. waa maxay farqiga u dhexeeyo labadaas diversity ama labadaas kala duwanaansho? the number of different species and relative abundance of each species in a biological community are called species diversity. and the variety of genes or inheritable characteristics
that are present in a population comprises its genetic diversity is called genetic diversity. Why? labadooda waa kana species diversity-ga iyo genetic diversity-ga labadoodaba difference u kala dhaxeeyo saas ayaad u kala qeexi doontaa. waa kaasa su'aashaas halkaas ku eg tahay. waa su'aasha shanaad waaye. waxaan u gudbaynaa su'aasheena lixaad ayaan u gudbaynaa. waxaana la dhahay list two examples of steroid hormone. waxaad liis garaysaa laba tusaale oo ka mid ah steroid hormoneska. Estrogen and testosterone are two examples of steroid hormone bes waa. hormoonka lagu magacaabo estrogen iyo hormoonka kale ee lagu magacaabo testosterone lagu kala magacaabo oo male-ka iyo female-ka laga kala helo. labadaas hormoon ayaa tusaale waxay u noqon karaan steroid hormoneska. qaybta B waxaana la dhahay non steroid hormoneska laba tusaale oo ka mid ah ayagana sheeg. non steroid hormoneska magaca kale ee loo yaqaano wuxuu yahay amino acid hormone waa la dhahaa. example haddii la rabo waxaan leenahay insulin and growth hormones. labadan hormoonka loo yaqaano insulinka iyo kan loo yaqaano midka koriinka qaabilsan labada ayaa waxay tusaale u noqon karaan non steroid hormone ayaan dhahayna. faahfaahin dheeri waxaad ka heli kartaa haddaad akhrin dheeri aad u baahato beeshka 37 ayaad ka heli kartaa su-aashan lixaad. su-aasha toddobaad differentiate between type 1 diabetes and type 2 diabetes. waxaan kala qeexi doonaa labada nooc ee sonkorta, nooca koowaad iyo nooca labaad ama heerka koowaad iyo heerka labaad ee sonkorta. labadaasaan kala qeexaynaa. definitionkeedu uu iska dheeryahay. waxaan leenahay people with type 1 diabetes waxaan dhihi karnaa sidoo kale insulin dependent waa dadka noocaas oo kale ah. diabetes mellitus lack the insulin secreting beta cells and consequently produce no insulin. Most diabetic patients, however, have type 2 diabetes or non-insulin dependent diabetes. They generally have normal and even above normal levels of insulin in their blood, but their cells have a reduced sensitivity to insulin. These people may not require insulin injections and can often control their diabetes through diet and exercise. ayaan dhahnaa. su-aasha waa kasaa difference u kala dhexeeyo ama u dhexeeya type 1 diabetiska iyo type 2 diabetiska saa ayaa u kala qeexinaa. question 8 keena su-aasheena sideedaad haddii aad fiirisaan waxaana la weydiiyey in the diagram below indicate the lobes of the human brain and name the parts that are numbered A, B, C and D. waa jaantuskan hoose midkan ayaa laga wadaa oo human brainka ka hadlayo, maskaxda bini'aadamka ka hadlayo. waxaa laga rabaa in aad sheegto inta laab ee ay ka kooban tahay maskaxda bini'aadamka ayaa laga rabaa. waa 4 lobes waaye. loob kastana waxaa laga rabaa inaad magacaawdo. waa 4ta loob buugga wuxuu ku kala ku calaamadeeyey 4 xaraf A, B, C ilaa iyo D ayuu ku kala calaamadeeyey. anaga afartooda waxaan sii raacinay function ahaan loob kasta waxa uu qabanayo waan sii sheegnay. 4ta loob su-aashan mar labaad ay soo noqotay. markii horena waxay ku jirtay qaybta circle-ka ah, haddana waa way soo noqotay qaybta circle-ka. waxaa ka jawaabi kartay keliya su-aashaasi marka adiga aad soo aqrisay ama aad xasuusan tahay maskaxda qaybaheeda 4ta loob marka aad soo xifdisay ama aad soo aqrisay keliya ayaad su-aashaasi ka jawaabi kartay. haatan waa kana isla afartoodiyaa laga rabaa inaad wada qorto inaad xifdiso. wax weyn kuma fadhiso. afartooda haddaan kala sheegno the 4 lobeska A, B, C, D da waxay kala tahay waa kana A, B, C, D waa kana qaybaan kale anaga iska sii raacinay. kan hore waxaa lagu magacaabi jiray frontal lobe ayaa lagu magacaabi jiray. laab horeed ayaa la dhihi jiray. shaqadiisa ama shaqada ay qabato qaybtan hore ee maskaxda waxa ay ahayd problem solving, creative thinking iyo personality. faahfaahin dib u soo akhri casharka ayaan hore ugu soo sheegnay. ayay dib u soo fiiri. su-aasha kale waa page 16 ayaa ka heli kartaa faahfaahin meeshaan ku soo sharaxnay. qaybta kale loobka kale wuxuu ahaa brital lobe. waa midkan bida lagu calaamadeeyey waxaa la dhahaa brital lobe
ayaa la dhihi jiray waa laabka koodka waayo af soomaaligiisa haddii aan ku xasuusiyo shaqadiisu maxay ahayd waa meesha ay bidaartu ku taalo waa qaybtan aan ku sheegno pretal lobka shaqadeedu maxay ahayd waxay qaabilsan tahay visual functioning reading understanding language intaasba ayadaa qaabilsan iyo in ka badan oo aan soo sheegnay laabka kale wuxuu ahaa occipital lob ayuu ahaa waa qaybtan dambe waaye gadaal dambe qaybta dambe ee madaxa occipital lob waxaan kusoo sheegnay laabka dambe waa laabka aragtida waa shaqadeedu waxay tahay vision shaqooyin kale ay qabatana way jirtaa waan soo sheegnay buugga dib u fiiri casharadaan kuusoo dhignay loobka ugu dambeeyo waa midka geesaha madaxa waa kan aan kusoo sheegnay temporal lobka aan kusoo sheegnay waa laabka jeegada aan kusoo sheegnay temporal lobka shaqadiisu waxay ahayd memories ayay ahayd xusuusta ayay ahayd ayadoo kasii badan in ka badan intaana waa soo qornay xasuuso qaybtan waxaa lagu magacaabaa brain stem jirida maskaxda ayaadan lagu soo sheegay waa basic life functioning iyo in ka badanna waan soo sheegnay qaybtanna waxaa lagu magacaabi jiray qaybtii horena waan kusoo sheegnay waa cerebellum shaqadeedu waxay tahay ayadana qaar ka mid ah hadda sheegno waa balance coordination iyo motor learning intaasba ayadaa qaabilsan su-aasheena sagaalaad haddaa fiirisaan waxaana la dhahay a color blind man waa lagu qoray marka sex chromosomekiisa marries a carrier woman ayadana sex chromosomekeeda waa lagu qoray what is the probability that their children will be color blind hadalka haddaan soo koobno wuxuu yahay waa nin indhoolo ah oo sex chromosomekiisa uu yahay sidaan ayaa waxa uu guursaday gabar ama haweeney ama naagtaasoo ayadana aan indhoolo ahayn laakiin cudurka indhoolanimada uu u qarsoon yahay ayaa uu guursaday ninkaas indhoolaha haddaba waa maxay probabilityda ama ihtimaalka ay labadaas markay isguursadaan ay ku dhali karaan caruurtaasoo indhoolayaal ah ay ku dhali karaan ayaa la iska rabaa su-aasha in la sheego carrier womanta waa lagu sheegay labada chromosome mar walba sida aan hore usoo sheegnaba femaleka marka laga hadlaayo sex chromosomekooda waa laba chromosome oo isku mid ah waxaana loo qaadan jiray waxaa la dhihi jiray chromosomyada toosan waxayna ka koobnaayeen ama ay ahaayeen x iyo x labada chromosome toosan oo all femaleska iska leeyihiin chromosomta hore waxba lama saarin chromosomta dambe ayaa waxaa la saaray c la saaray oo capital ah taasi waxay caddaynaysaa in labada xaraf xx ee isla socota mid ka mid ah weliba midka dambe haddii wax la saaro waxay kuu muujinaysaa in waxaas laga hadlaayo in carrier ay yihiin ayaa ay kuu caddaynaysaa halkana maanka ninka marka laga hadlaya isna waxaa lagu sheegay chromosomekiisa sex chromosomeskiisa waa x iyo y loo qaataa mar walba laba chromosome oo kala duwan waa chromosome toosan iyo chromosome qaloocan ayaa ay maleku leeyihiin chromosomta y-da waxba lama saaro laakiin midda x-ta ayaa un wax la saaraa ayagana waxaa wax loo saaray hadda c-dan hadhow meesha aad ku aragto x iyo y oo isla socdo oo c ay kor ka saaranta waxaad dhihi doontaa waa color blind ayaad dhihi doontaa haddaad aragta xx oo isla socota hal x ka mid ah c ay kor ka saaran tahayna waxaad dhihi doontaa carrier annaga waxaan isticmaalnay marka Punnett square oo caadi ah ayaan isticmaalnay haddaad rabto waxaad ku shaqayn kartaa habka anaga aan usoo shaqaynay example-kii qaybtii hadda oo u dambeysay su-aasha 20aad marka aan ka shaqaynayno oo kale qaabka noocaas oo kale ayadana waa aga shaqayn kartaa haddaad rabto hadda waxaan samaynay maadaama laba qof laga kala hadlaayo hooyadu waxaa lagu dhahay cudurka indhoolnimada wuu u qarsoon yahay oo carrier waayo waa carrier woman aabahana waxaa lagu dhahay waa indhoole ama camoole oo toos ah waayo hadday isguursadaan caruurta ay dhali doonaan inta noqon doonta indhoolaha waa imisa waayo su-aashu marka si aad usoo saarato labadan waa kala qaaday female maadaama femaleku uu iska leeyahay labadan x iyo x oo c ku jibaaran ay kala wataan x-tan hore inta ku qor x-tan oo ay c-da ku jibaaranta inta ku qor halkan c-da waan ka tagnay karaali noqda labadan x markaa fiiriso chromosomyadan uu ninka uu iska leeyahay waa x power c x power c-da waa tanaa iyo y caadi y-dan waa tanaa caadi isugu dhufo x-kan iyo x power c-dan hadday isku dhacaan
x tan waa tana x power c dan waa tana hore waxa u soo sheegnay x laba x oo isla socoto mid kamid ah hadii kor ay c ka saaran tahay waxaan ku magacaabaynaa carrier-keeda ku sii qor haddana waxaan isku dhufanaynaa x tan ama aan israacinaynaa x tan x power c dan waa kana x tan hadaa waxay ahayd c saan ku soo sheegay anaga ka tagnay x power c iyo x power c isgarab dhig laba x oo c wada wata waxa waaye color blind oo toos ah waaye waxaan dhahaynaa haddana kuwaan soo saaranaynaa x tan iyo y dan israacaya waa x caadi iyo y caadi normal waaye ayaan dhahaynaa waxba maxaa yeelay kor kuma wataan x oo ku jibaaran c iyo y oo caadi israacaya waxaan dhahaynaa ayagana color blind waaye waa indhoolo ayaan dhahaynaa haddaba ilmaha ay dhali doonaan ninkan iyo naagtan markay isguursadaan waxa ay hadday gabar ay dhalay hadday gabdho gabar hadday dhalato gabadhu waxay noqon kartaa labadan midkood gabadhu waxay noqon kartaa carrier gabar cudurka indhoolnimada uu qarsoon yahay ama gabadhu waxay noqon kartaa color blind gabar indhoolo ay noqon kartaa haddii ay wiil dhalaanna wiilka muxuu noqon karaa wiilkooda wuxuu noqon karaa normal wiil cudurka indhoolnimada aanan qabin ama aanan u dhaweynba ama wuxuu noqon karaa wiilkaasoo indhoolo toos ah oo color blind oo toos ah ayuu noqon karaa oo indhoolo ayuu noqon karaa su-aasha naga lagu weydiiyo waxay tahay probability-ga childrenka ay dhalay doonaan oo color blind ay ku noqonayaan color blind ay ku noqon karto color blind waxaa noqon kara labadan besa color blind noqonayso waa wiilna ilmaha ay dhali karaan haddii wiil u dhasho wiilka wuu noqon karaa indhoole gabar hadday dhalaanna gabadhu way noqon kartaa indhoole way noqon kartaa maadaama labadan ay suurtagal ay tahay waxaan leenahay marka kuwan maadaama daughters gabdhihii ay yihiin kuwana son igaartii ama wiilashii ay yihiin then horta kulli probability haddii la wada qoro maxay noqon lahayd afar zygoda soo baxday afarta hoos ku dhig hal ka mid ah waaye x iyo x power c soo qaado calaamada ratio-ga soo qaado haddana afar zygod waaye afartan maxsuul ee soo baxda waaye one ka mid ayaa x power c ah waa midana laga wadaa haddana waxaa la soo qaatay 4 kor wana lagu dhigo one kan wuxuu u taagan yahay x iyo y dan caadiga ah calaamada ratio-ga oo 2 loo akhrinayo haddana waxaa la soo qaatay 4/1 afar meelood meel ayaa laga wadaa waa x power c iyo y caadi ah anaga waxa la iska rabaa kaliya waxay tahay color blind meeqa color blind waxaa kaliya laba x oo ay ku jibaaran tahay cc iyo x power c iyo y caadi ah labadan bes ayaa color blind ah waa hal wiil iyo hal gabar ayaa indhoole noqon kara waay ayaga isku darayna marka 4 iyo 4 mid ka soo qaado 1 iyo 1 isku dar waa 2 labadan si yare kor 2 u qayb waa 1 hoos 2 u qayb waa 2 ayaan dhahaynaa waxaan dhahaynaa tafiirta dhalan karta ama ninka indhoolaha iyo gabadhaasi indhoolanimada ay u qarsoon tahay markay isguursadaan oo ay waalidkeeda indhoolanimada u soo gudbiyeen maxaa dhici kara waxaa dhici karta labadii cunug oo ay dhalaanba mid ka mid ah ayaa indhoolo noqon kara waay halkaas waxaan ka fahmi karnaa haddii hooyada cudurka indhoolanimada u qarsoon yahay macnaha waxaa laga wadaa indhoolanimada suu ku qarsoonaan karaa gabadhan aabaheed ama hooyadeed ayaa indhoolo ahaa ayada marka indhoolo ma aha haddaysan indhoolo ahayn indhoolanimada way u qarsoon tahay ninkaana sida hadda lagu sheego cudurka indhoolanimada waxaa soo qaadsiiyey labadiisa waalid mid ka mid ayaaba soo qaadsiiyaba maxaa dhici doona markay isguursadaan waxaa la dhihi doonaa hadday wax dhalaan ilmaha tafiirta kuwaad ay dhali doonaan mid ka mid ah ayaa wuxuu noqon karaa indhoolo noqon kara midkaasna wuxuu noqon karaa wiiluu noqon karaa ama gabaruu noqon karaa ama gabaray noqon kartaa su-aasha kale ku xigta waa the last question su-aasha ugu dambeyso ee section c waaye su-aashan haddaad fiirsaan waxay u dhacaysaa su-aasha 10aad waaye su-aasheena 10aad waxaana la weydiiyey the flow chart below indicates the parties of the nervous system complete the missing parties in the boxes waa flow chartigan hoose ee soo socda waxa uu muujinayaa qaybaha habdhiska dareenwadka ayaa uu muujinayaa su-aasha la rabo waxay tahay waa in aad buuxisaa qaybaha ka maqan boxyada buugga wuxuu kuu qoray su-aasha waxaa lagugu qoray kor nervous systemka wuxuu u qaybsamaa 2 parties labada qaybood waxaa lagu dhahay qaybtaanuu buugga kuu qoray oo wuxuu ku dhahay peripheral nervous system oo BNS loo soo gaabiyo qaybtaana kaa maqneed qaybtan marka waxaa lagu buuxiyey central nervous system CNS ayaa lagu buuxiyey
haddana qaybtan CNS ta laba loo qaybiyey qaybtan uu buugu ku sheegay wuxuu ku dhahay spinal cord qaybtan kale maxay noqonaysaa waa qaybtan aniga buuxinay waxay noqonaysaa brain spinal cord-ka shaqadiisu maxay ahayd xasuuso waxa waa conducts signals to and from the brain and controls reflex activities ayay ahayd brain-kana muxuu ahaa shaqadiisa receives and processes sensory information initiates responses stores memories generates thoughts and emotions qaybtan kale ee peripheral nervous system PNS ta labay u qaybsantaa labada qayb buug wuxuu ku qoray qaybtan oo ah sensory neuron qaybtana ka maqan qaybtan waxa lagu buuxin lahaa motor neuron ayaa lagu buuxin lahaa sensory neuron shaqadiisu maxay ahayd waa sensory organs to CNS kana wuxuu ahaa CNS wax ka soo qaadaa to muscles and glands ayuu u gudbiyaa haddana qaybtan motor neuronka ayuu buugga laba u qaybiyey labada qaybood qaybtan wuxuu ku dhahay waa somatic nervous system ayuu ku dhahay qaybtan kale ayaa ka maqan qaybta ka maqan waxa lagu buuxin lahaa automatic nervous system ayaa lagu buuxin lahaa qaybtan shaqadeedu waxay ahayd controls voluntary movements qaybtan shaqadeedu waxay ahayd controls involuntary responses qaybtan kale ee noogu xigta buugga ilaa halkan uu ku joojinayaa su'aalaha laakiin anaga intaan ku sii darayno maybe in lagu bedelo automatic nervous system-ka laba usii qaybsamaa lagu dhihi karaa qaybtana lagu sheegi karaa qaybtana laga qarin karaa qaybtana lagu siin karaa qaybtana laga qarin karaa adiga mar waliba iska xusuusnow qaybtan labada qaybood ee automatic nervous system-ka uu sii kala baxo waa sympathetic diffusion iyo parasympathetic diffusion qaybtan sympathetic diffusion-ka shaqadeedu waxay ahayd waa fight and flight qaybtan parasympathetic diffusion-na waxay ahayd rest and digest wabillahi tawfiiq section C halka ay inoogu eg tahay insha Allah inaad ka faa'iideysan doontaan ayaan rajeynayaa in badan aad ka aqrin doontaan ama aad kelmadaha waxaad xifdinaysaan aad ku darsan doontaan inta hadda imtixaankii ugu dambeeyay lagu keenay insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wada xifdin doontaan su'aalaha iyo jawaabaha kulliba waa laydin wada siiyey waxa aad xifdinaysaan ku sii darsada hubka aad urursanaysaan ee aad imtixaanka urursanaysaan marka ha idin noqoto insha Allah marka qaybtan intaas ku eg tahay maadada kale ee ku xigta ayaa inoo balanaa mahadsanid